aad baa u mahadsantihiin boqolkiiba boqol aad baa u mahadsantihiin reer Bolonyaanya iyo Dhagaxley waad mahadsantihiin aad iyo aad bay farxadayda ayaan u faraxsanahay inaan haddana aniga oo 5 sano people living with a disability ka mid inaan ku soo noqdo shaqada aad baan ugu faraxsanahay inaan la kulmo aad baan u faraxsanahay farxadaasna xagga Alle ka ahaatay inta kale waa ducaa xafladan siyaasad ma aha waxaan doonay laakiin inaan kaga yar faa'iideysto maadaama MCA-gana uu joogo ummadii Dhagaxley duqeydeedii iyo Bolonyaanya duqeydeedii dhammaan haweenkii dhalintii la wada joogo inaan ka yar faa'iideysto labada eray dhinac waa security-ga waa xagga shaqada ugu badan ee chiefka security-ga waxaan rabnaa sidaan hadda aan nahay inaan ku socono ilaahay waxaan ka codsanaynaa inuu ilaahay shufta burcad ilaahay inuu naga qabto ilaahay burcad naga qabto dib burcad Allah naga qabto sida hadda aan nahay aan maaragtay horumarka aan raadsano oo irsaqa ilaahay sida diintaanada sheegtay qaadul dariiq xoolo aad ka qaaday kuma anfacayso inaad iska xoogaada amaalato oo dhididkaada aad cunto oo ilaahay gaad u irsaaq tagto ilaahay baa afkan abuuray inuu wuxuu gelinaya asaga garan ma garanaysa maalinka xul maxfuudka kugu qorantay maalinkii aad dhalatay xabiibiya ahayd baa lagu qoray marka waxaan ka dardaarmay dhalinta inay burcadnimo wax la yiraahdo inay aad iskaga ilaaliyaan mustaqbalna kuma jiro tasguurida taasaan uga bixi midda labaad rab inaan ku hadlo oo deegaanka qaxootiga waa ayadana oo xagga dhulka ku saabsan dhulkii muhiimada uu xiran dadkii deegaanka iyo qaxootiga xoolihii waa niman xoolo lahayn male haddana ha ahaatee dhulkii waxaa loo xirtay ganacsi baa loo xirtay cooska hadda baxay ilaahay bixiyey kulli intii la soo guro karratooyin yaa la kaydinaya iyo waa meel uu nin xirtay oo uu maartay ku sugahay beer aan ahayn intii la deero lagu sugaa jac xoolaha hadda Bolonyaanya ka daraan meel ay ku daraan baa laay meel ay ku daraan Soomaaliya neefkii saa u dhaqaaqa waa ka kuba dabada kaga jira soo uriyaa waa la dilaya waa la xiraya waa la xariisanaya war diwaay deegaanka dadka deegaanka intay aadayn number 2 ma aha marka dambiga qaxooti ma laha number 1 deegaanka ayaga horseedka kama tiin idinka horseed idinka ka soo ma garan arrinta ayada dib weyn bay nagu haysaa waabay sida noqotay waxaan noo imaaday bariya nin Salmaan liira SSP Salmaan baa mas'uul riid baa noo imaaday wuxuu sidan ay tahay hawl baan galay hadii waa ku guuleysana waa nadiifinay soo ma ahayn saas waa muddo lagu mooday way hadda way soo noqdeen waxay u baahan tahay dhulkii hadda bariga ayada administration baa aad u faaganay laakiin hadda wax devolution la imaaday bariga chiefafka saarta xaan gelinayn administration ABD yaan taa qabanaa dadka waxaynayn laakiin hadda waxa imaaday devolution county baa iska leh dhulka county ga iska leh waxaan ka codsan arrinta dhulka waa dib weyn oo deegaanka iyo qaxootiba haysato waa in yar baana sameynaysa waa meeshan iyo ABD dhexdeeda hal nin iska oodan wax title wax waraaq u wato wax sharci u haysto midna male ma garanaysa ilaa meel walba oodan 20 kilometers baa oodan arrinta ayada inaad maartay xafiisyada county meesha ayada xilka asaga inaad bal inta hadda aad ku jirto inaad dadaal samayso sidii beerahan dhulkan commercial ka ahayn loo maartay loo furi lahaa commercial baa loo xirto wax kale loo ma xiran intaasaan maartay ayadana xagga dhulka ayaan kaga bixi